أذكر الله لا بلا شيء لا بلا شيء اللهم صل اللهم صل اللهم صل waxaan tahay haddii aad aragtay ooyinta qofka haatan ilmeynaya ee ilmadu ka fiqfiq leedahay haddii aad ku fikirtay inuu yahay Xasan Daahir Aweys aas-aasihii iyo hogaamiyihii ururada islaamiyiinta Soomaaliya ka dagaalamay ee ugu magac weynayeen al-shabaab iyo xisbul islaam odagan garcadaaga ee muddada u soo halgamay dagaalada diimeed ee Soomaaliya ka jira ayaa haatan la dhibaatoonaya xabsi guri uu ugu jiro dawladda Soomaaliya oo teeramkii madaxweynihii hore haatan xilka laga wareejiyay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh teeramkiisii horeba uu ku dhameystay xabsi ku yaala madaxtooyada dhexdeeda waayeelkan qaarowga ah ee ku dhagan wali go'aankiisii hore ahaa in go'aamada dagaalada jihaadiga ah ee urur diimeedyada Soomaaliya ka dagaalama ay yihiin jihaad sax ah ayna tahay in dhiigga ummadda Soomaaliyeed loo daadiyo wax micno yar walina fikirkiisii ayuu ku dhagan yahay hase yeeshee waxay ugu darneed hilaadii 2021 bartamaheedii markii la arkay Xasan Daahir Aweys oo farxadda la qaadanaya wiil uu dhalay oo jaamacad dhameeyay una hambalyeynaya balse su'aasha milyanka dollar u dhigantay ee Soomaali badan ay isweydiiyeen ayaa ah ardaydii lagu laayay harkaha iyo saamaha iyo kuwii hotel Shamo maxay galabsadeen marka wiilkiisa uu waxbarashada iyo jaamacadda ugu hambalyeynayo mase ardayda Soomaaliyeed iyo ilmaheena ayaa ah miskiin baa miskala koro leh kuwiisuna waa landheerayaal horeyba loo sii ogaa in nimanka al-shabaabka ugu waaweyn ee caruurtooda eheladooda iyo caruurta ay dhaleen iyo sidoo kale dadka ay xididka iyo qaraabada yihiin ka ilaaliyaan dagaalada adag iyo in ay ciidanka kuwooda ugu adag u qoraan hase yeeshee ay siiyaan xilal yaryar oo macmacaan kuwa laga maarmi waayo kuwa kalena ay dagaalkaba ka deystaan ayaa wax kasta waxay soo ifbaxeen markii la arkay odaygan baraha bulshada ku soo biiray oo wiilkiisa la dabaaldegaya Soomaalidu waxay horay u lahayd murti iyo fan cajaa'ib ah oo ku saabsan nafsiga waxaase u soo qaadan doonaa murtidii caan baxday ee gabaygii ku jirtay nafsi wuxuu gurguurtaba marbuu gacan ku siiyay waalidiintii ooyay maalintii harkaha iyo saamaha iyo kuwii baroorta cishan waayay qaraxii hotel Shamo ee heesaha taariikhda galay ee qayla dhaan waaware iyo laga sameeyay waxa ay nafsigii isi soo bedeleen markii wiilkii jaamiciga ahaa uu ku qurbaxay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose taasi oo si kama ah uu ugu dhintay sida naloo soo sheegay Xasan Daahir Aweys oo ilmada cishan waayay oo ay ka fiqfiq leedahay bal ila daawo muuqaalkan wadna mahadsan tahay جزاه الله عني خير جزاه الله عني خير جزاه الله عني خير جزاه الله عني خير كما سلاس ويي أذكر الله لا بلا شيء لا بلا شيء اللهم صل اللهم صل اللهم صل جزاه الله عني خير جزاه الله عني خير جزاه الله عني خير جزاه الله عني خير كما سلاس ويي inkastoo ay jiraan saaxiibo badan oo awood ku lahaa siyaasadda dagaalka gurracan ee diimeed hase yeeshee ka soo tanaasulay oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo wasiirka waqaafta ee diinta Soomaaliya Sheekh Muqtaar Roobo Abu Mansuur awoowe waxa uu wali ku dhagan yahay kana tanaasuli la yahay ra'yigiisii ahaa Soomaalidu waa gaalo dhowrka yarka ee bidcada ee shabaabka ahna waa muslimiin haddaba nafsiga waa shay aad u falxun una soo degdega mana waaro ma isleedahay waalidiintii baroortay ee ooyay maalintii Shamo iyo maalintii harkaha iyo saamaha ee Xasan Daahir ahaa quwad weynaha ku horkaadiya xeryaha al-shabaab iyo maanta way kala duwan tahay